maxamed shukri jaamac xulul gudoomiyaha rugta ganacsiga jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa uu faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay khasaaraha dab ka kacay suuqa ganacsiga ee degmada Togo Jaale ee gobolkaasi Gabiley. Gudoomiyuhu waxa uu sharaxay tirada meheradaha ku gubtay dabkaasi iyo khasaaraha ka soo gaadhay. Geesta kale gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliland waxa uu mahadnaqay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ciidanka damdamiska ee jamhuuriyadda Soomaaliland sidii dareenka lahayd ee ay ugu gurmadeen dabka ka kacay suuqa ganacsiyeedka degmada Togo Jaale. halkan waxaan ku qabanaynaa rug ganacsi ahaan shir jaraa'id oo kaga hadlayno dhacdadii runtii khasaaraha badan ka dhasheen ka dhacday saylada weyn ee Soomaaliland ku taalo xuduudda Wajaale runtii sida ay noo soo gudbiyeen gudida ganacsatada degmadu iyo gobolku waxaa halkaa ku shuf beelay 54 meheradood oo kala ahaa 8 bakhaar 5 store ku alaabta lagu kaydiyaa 4 meheradood oo iibinaya qalabkan electronicska 2 maqaaxiyadood ama hodeel 1 meheradood oo iibinaysa qalabkan hudheedka iyo 34 bacad leh 54 meheradood wixii hoos yaalay way shuf beeleen wali si cad looma oga waxaana gacanta ku haya runtii hay'adaha ku shaqaalada baarista booliska iyo hay'adaha amniga ayaa gacanta ku haya sababtii dabka kicisay wuxuu ka bilowday meherad kamida meheradada bacadla ayuu ka bilowday runtii daweyn ogsoonahay Soomaaliland waxa wada kulaalaysa wada leedahay inta ganacsatadu hayso iyaguna masaariif bay reerooda ka siiyaan qarankuna cashuur iyo qaadaan iyo wixii lamid ah ayuu ka qaataa idan waxa weeyaan hantidii Soomaaliland qaranka Soomaaliland wada lahaa qayb kamid ah ayaa halka ku shuf beeshay marka runtii anigoo odaygoodii ah marka koobaad inuu iyadoo la isxaal u yahay haddana muxuu ahaa arrintaas dareenkeeda loo lahaado oo loo ogsoonaado inay halka hanti badan oo wada lahayn ay ku baabaday muxuu ahaa rag badan oo ganacsada ah oo 54 meherood ragii lahaa oo cashuur bixiyaa lahaa oo dadkii qaranka ku tiirsan ah halbowlaha kamid ah iyaguna maanta ay wax la'aan ay joogaan iyaga waxaan leeyahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala maaragtay bedel khayr qaba aydan ka siiyo guud ahaan ciidamada dadabiska Soomaaliland iyo mas'uuliyiintooda waanu mahadnaqayaa gurmadkii ay geysteen iyo sidii maartay nafurida lahaa iyo lahajaarada lahayd ay raggaasi barbar taageen waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa runtii jananka booliska oo arrinta abaabulay tagayna meesha oo joogay oo taagnaa dadaalka iyo abaabulka iyo isku dubaridka maartay muxuu ahaa debdemiska la wada hadalkoodana runtii isagu lahaa aad baan uga mahadnaqaynaa madaxweynaha Soomaaliland runtii isaguna dareenka odaynimo oo muujiyay markiiba iyadoo warkii wali soo dhumaystirmin uu ka hadlay iyo sidoo maartay uu muujiyay inuu muxuu ahaa runtii uu la dareen yahay ka xun yahay oo la dabqanayo dadkiisa iyo guud ahaan cid kastoo arrinta runtii ka hadashay baan anigu afkooda ku hadlay ganacsatada waa muxuu ahaa runtii aad iyo aad baa mahadsantiin waxa adkaatay sidii gaadiidkii debdemiskii gurmadka ay meel ay ka gaadhaan ay dabkii ka baqtiyaan inay waayeen wada la'aan baa dhacday wada la'aan ayaa dhacday waxaad moodaa inaynu u degnay qaab aynaan ku talagelin inay dhibaato ay dhici karto arrintaasoo kale caasimadda ka jirta ahaan caasimadaha goboladuna saasay wada yaalaan arrinta koowaad ee imika markiiba si qaawan u muuqatay waxa weeyaan sababtayna inay muxuu ahaa inkastoo meel fog laga soo gurbanayay 54 meheradood midna la baqtin kari waayay arrinta koowaad waxa keenay sidii loo gaari lahaa iyo wada la'aanta ayaa keentay marka arrinta runtii cod dheer waxaan ku gaarsiinay mas'uuliyiinta qaranka ay khusayso madaxweynuhu ka yahay in muxuu ahaa qorshe degdeg arrinta laga yeesho